ma jiro qof dunidan ku nool oo been kuugu sheego sidaad adigu isugu sheegta beenta oo kale meeqa jeer ayaad ku tiri naftaada sanadkan wuu iga duwanaan doonaa kii hore meeqa jeer ayaad dhahday sanadkan waa sanadkayga waxaan aadi doonaa jiimka waxaan cuni doonaa cunno caafimaad leh xilligeedan seexan doonaa oo halkaasi ayaan ku ekeen doonaa dhafar ama saamalayl saad u taqaanaba waxaan noqon doonaa qof wanaajiya xiriirka alla weyne subxaanahu wa tacaala kala dhexeeya 2 wiig ama bil kadib maxaa samaysay midna ma aadan sii wadin hagaajintiisa soo ma ahan runta haddaan ka hadalno been ayaad isku sheegtay soo ma ahan haddaan idinku idhaahdo intiina badan waxba ma samayn doontaan haddaydan qorshihiinnii hore wax ka beddelin waxaa laga yaabaa inaad igu xanaaqdaan laakiin sida dhabtaa waa inaad ku xanaaqdaan nafafyaalkiina sababtoo ah 2 sano ka hor adigaa yidhi waxbaan samayn doonaa sanadkii la soo dhaafayna yidhi waxbaan samayn doonaa sanadka soo socdana sidii oo kale ayay noqon doontaa haddaadan qorshe cad samaysan oo aadan sidii hore wax ka beddelin soo horjoogso muraayadda oo naftaadani runta u sheeg intaad noloshaada fiirisood qiimayso runta isku sheeg oo isweydii maxaan qabtay sanadkii la soo dhaafay ee dhammaaday maxaa u baahan inaan wax ka beddelo sanadkan maxaan qaban karaa oo cusub sanadkan si dhab ah diyaar ma ugu tahay inaad wax ka beddesho noloshaada mise diyaar uma tihid haddaan kuu sheegayaa wax micno ah ma samaynayaan inta fiidiyow ee aad daawato micno ma samaynayaan inta buug dhiirigelin ah ee aad akhriso waxa macnaha samaynaya waa intaad adigu tallaabo qaaddo oo aad isbeddel samaysaa ilaahay qoomna ma beddelo ilaa ay iyagu nafahooda wax ka beddelaan haddii 100 hadal oo faa'iido leh laguu sheego balse aadan adigu isbeddelin bartaadaad joogaysaa weligaa waxa micnaha leh ee muhiimka ah waa inaad samaysaa wixii aad tiri waan samayn doonaa waa inaadan u dhaqmin siday u dhaqmayaan dadka caadiga ah oo waagu u beriyo kadibna wax cunaan oo cabbaan gabalkuna sidaa ugu dhaco ayagoon wax ahdaaf ah ka lahayn noloshan waa inaad la soo kacdaa markuu waaga kuu beriyo ahdaaftaadii oo maalin kasta qayb ka mid a aad ka samaysaa markaad maalin kasta u soo kacdo ka dhabaynta hadafyadaada guulahaaguna waxay noqon doonaan kuwo isdabajoog ah oo isdaba yaala ilaa ay marka dambe guushu noqoto qayb adiga kaa mid ah ku dheh naftaada erayadan maalin kasta khibrad igu filan haddaan lahayn laakiin waxaan leeyahay rabitaan adag waxaan rabaa inaan guulaysto waxaan rabaa inaan sameeyo wixii aan rabooday weliba sida ugu dhaqsiyaha badan waxaan rabaa inaan ka rumeeyo riyooyinkaygoo dhan sannad walba kan ka dambeeya waxaan rabaa rabitaankayga inuu sii siyaado wax badan inaan qabsado inaan caafimaadkayga ku dadaalo inaan sidaan hadda ahay ka sii fiicnaado inaan ku qancin xaaladahayga hadda sida ay yihiin hadduu ilaahay yidhaahdo sugitaankan fikirkan iyo qorshayntan horay kuuma wadayaan keligood ee waa inaad raacisaa ficil muhiim ma ahan ficilkaasi halka uu la eg yahay balse waxaa qasaba inaad socoto horayna u socoto noqo qofka aad isku sheegto inaad noqon doontid haddaad si dhaba u doonayso inaad guulaysato haddaad rabto inaad beddeshid noloshaada samay hadda waxa aad rabto inaad samayso waxba dib ha u dhigan sanadkan ma ahan kii riyada ee waa kii ficilka iyo ka dhabaynta ma ahan sanadkii aad daawan lahayd dadka kale oo wax qabsanaya ee waa kii aad adigu wax qabsan lahayd laguna sacbatumi lahaa waa sanadkaagii